dadka Soomaaliyeed aqlabiyadoodu waxay qabaan anigu mar baan aan maxaan ku dhahaa cilmi baaristaas dadkii sameynaya ku jiray hadda ka hor marka su'aasha xildhibaanka iyo wasiirka ma la kala qaadaa mise way isla soconayaan dadka Soomaaliyeed waxay qabaan boqolkiiba 90 inay ka yihiin u malaynaya hadayna ka badnayn in la kala qaado marka dadkaas iska rab marka dadka Soomaaliyeed waxay rabeen hadii la sameeyo dhib ma leh ragaan saaxiibanahay waxaan arkay si weyn arabka ugu adkeynaya waqtigii waa dhamaaday dastuurkiina dastuur ma ahayn waqtigiina madaxweyne xasan waa ka dhamaaday 15 May buu ku egyahay madaxweyne u dhageyso maqal rag la arkayo si fiican ugu fasaxaynayo heer sare marka waxa isdiidaya dastuurkii 12 baa dastuura iyo waqtigu dhamaaday isma balaba dastuurka 12 ay ansixiyeen ergadii 800 iyo something ahayd waxa inoogu qornaa ay ku ansixiyeen termku inuu 5 sano yahay marka hadii dastuurka 12 la ansixiyay lagu noqonayo maxaa keenay 15 May bay baash ku egtahay in dastuurka saasa ku qornay baarlamaankii baa bedelay markii dambe qodobkaas marka horta taas waa taasoo isma leh waa in la iswaafajiyaa dastuurkii 12 baa dastuura waqtigiina waa dhamaaday isma qabanayso haddii kan la qaato imika la dhammaystiray dastuur cusub ma aha waa dastuur la dhammaystiray sidii dastuurku farayay ayaa loo dhammaystiray haddii ka la dhammaystiray sida wasiirada loo dareerinayo imika haddii kaas la qaatana fatradu waa 5 sano haddii kii 12 la aadana fatradu waa 5 sano marka meel looga baxo 5 sano ma jirto marka waxaan rabnaa dastuurka Soomaaliyeed cidii lahayd baa dhamaystirtay xildhibaanadii bariga yiri fadhigoodii ugu horeeyay intay fariisteen oo Jawaari Allah naxariistay gudoominayay yiri laba qodob baan dastuurka ka bedelnay oo qodobkii 5 sano 4 sano ka dhignay waxa kale oo ka bedelnay madaxweynaha kala diri kara baarlamaanka qodobkaana waan ka bedelnay waa diidnay oo deedna sidaas ku soo shaqeynaya intaas oo dhan ee aynu sidaa u aqbalnay ee sidaa u yeelnay ee 4 sano ay xukuumadii hore ugu dhamaatay oo tii labaad ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ay sidaa ugu dhamaatay isla kuwii oo xildhibaanadii oo baa haddana 5 sano dib u soo celiyay marka maxaa marna xaga ka dhigay afatuuminuna bi bacd alkitaabi wa takfuruna bi bacd marka meeshii la arkaa ma loo dhaqaajinaya wax waa in jid la raaca oo siyaasaddu jid la raacay leedahay jidkaasina waa jid dimuqraadiyadana waa lagu tartamaa marka lagu tartamana cidii adkaatay baana wada cid kalena waa mucaarad laakiin way ogolaataa marka siyaasad aan qawaacid lahayn oo aan qaacidooyin ku dhisnayn oo aan dadku aynan qaacidooyinkaas ku wada qanacaynin oo aynan ku ogolayn siyaasad ma aha ninba dawlad goboleed jooga for example xildhibaanu keensanaya wuxuu soo jiirayaa beeshii iyo isinkeedii ama ugaaskeedii ama dhaqankeedii oo dhan xoog buu ku soo qaadanaya markuu keeno oo xildhibaanadii laga aqbalo oo la yiraahdo waa yahay hala dhaariyo la dhaariyo xildhibaankii uu shaqo bilaabo oo yiraahdo xildhibaankaasaan keensaday oo uu deedna ku soo shaqeeyo oo yiraahdo hebel ii dooro hebelna ii garid oo deedna xildhibaankii shaqada uu soo qabto markii uu xildhibaankii marka shaqadiisii constitutionally ahayd markuu bilaabo ee dastuurku farayay oo ah inuu xeer dejiyo inuu xukuumadda la xisaabtamo iyo inuu representation sameeyo oo dadkii uu ka yimid uu matalo shaqadiisii markuu bilaabo ayuu haddana isla asagii wuxuu oranayaa wixii xildhibaanku sameeyay waxba kama jiraan oo maxaad markii hore u keenaysa waxa u soo dhacaysa xildhibaanka aan anugu prime minister codkiisa ku ahay ee madaxweynaha ku yahay
dadka Soomaaliyeed ku aqbaleen asagii u baa hadana dastuurka gacanta u taagay oo dhahay dastuurkanina waa sax waana dhamaystiray maxaad kan ku aqbashay kan ku diiday anu ma fahmin yani waa siyaasad aan lahayn qawaacid iyo meel loogu laabto oo la yiraahdo hayda jecli beerka jecli la jiifiyaana banaan kaan rabaan diidaya kaan rabana waayo waxa siyaasad adduunka laga yaqaan ma siyaasiga Soomaaliga inuu ilba xal rabaa waa in uu noo keenaa waxyaabahan baranay waxa kamid ah siyaasiga Soomaaliga aan hadda waxyaabahan ku aragnay oo la yaab kale waliba walaalaheen mucaaradka hadda oo ay ku tilmaamay yihiin waxa kamid ah waxna keeni maayo waxaad keentana ma yeelaayo waxna ma keenaayo waxaad keentana ma yeelaayo war ana waxaad kayga wax ka fiican keen ana ku raacay maya yeeli maayo ma keenaayo waayani soo raac ma yeelaayo waayay hoo kayga qaado oo waxa diidan tahayna ka tuur waxaad rabtana ku soo qor ma yeelaayo ana soo habaysana wuxuuna si aniga aan ku soo fakaro adigu leedahay ma yeelaayo sheekadii aho ee adeeraday ayaa meesha loo soo fadhiistay waxaas ma soconaya waxaan u baahanahay inay siyaasadeenu qaan gaarto waxaan u baahanahay in yow ina ka baxro in yow iyo aho ina ka baxro rabaa waxaan u baahanahay siyaasad meel loo raaca leh war kursi ma rabtaa haa anna ma rabaa okay aan samaysana qawaacid adduunku wuxuu yaqaan ahzaab baa la samaystaa shuruuc baa la samaystaa dastuur baa la samaystaa waa la tartamaa waa dadka lagu cararaa shacabka wax loo celiyaa ayaga wax laga doontaa meesha aan aadno ma yeelay dictator baa tahay oo adiga wax adkaysanaya ani ma dictator ahaa oo maxaad rabtaa dimuqraadiyad caalamka saanu yahay xurriyadda la rabaa in dadku wax sidaas baa la rabaa nooca la rabaa keligii baa guriga isku soo xiray Xasan Sheekh baa hawsha wixii oo dhan ka dhamaysanay waay oo ma inaan aniga shamuuli oo wixii oo dhan isku soo qaatay oo anigu tashanayo oo aan cid laba la tashanaynin oo wixii oo dhan aad baad igu eedeynaysaa ha markaasaad magaaladii dimuqraadiyadda tagaysaa magaaladii dimuqraadiyadda ma dimuqraadiyaddu doonanaysa oo ku soo shiraysa waaye dhibba mare waad ka sii dartay oo haddana meel nin aan saaxiibanahay waxoogaa iskaga ciyaarood og tihiin oo dee isaguba uu og yahay iska ciyaar waxaad aragteen ayaan u sacabtumayaa oon dhahayaa waxaan doonayay ninkaas uu saxsan yahay waa yani qofka haddaad dhahdo taskiisiiso shahaada ilaahay hortiisa aad ku shahaadayso ku markhaati kacayso qofkaasi inuu saxsan yahay yani hebel wuu saxsan yahay nin baa soo istaagay wuxuu dhahay baydhabo wixii ka dhacay waxay ahaayeen annagu federal baynu nahay haddaynu nahay Soomaali dadkii Soomaaliyeed ee meesha deganaa baa fariistay way tashteen go'aan bay gaareen deedna dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas degan koonfur galbeed hadday tashadeen ay go'aan gaareen maxaa loo diidayaa ilaahay baa ku dhaarshay ma go'aan buu ahaa yaa la sirayaa yaa been loo sheegaa ninkaas wuxuu rabaa hadda uu taagan yahay Soomaaliya iyo doortuu leeyahay sow ma fududa hadda oo iskama sahlana marka haddayba sidaas wax u sahlan tahay waxay ku tusinaysaa un siyaasiga Soomaaliga ahi runtii inuusan deganayn ma degana deganaansho la'aan weyna ku dhacsan marka waxaan u baahanahay siyaasiga Soomaaliga inuu bismillaahir rahmaanir rahiim dhaho inuu isdejiyo deedna kursiga Ilaahay baa bixiya qofku rabo Ilaahay siiya qofku rabana Ilaahay uu ka qaadaa laakiin bani aadamka Ilaahay wuxuu aqli u siiyay oo xoolaha uga duway in ay la yimaadaan wax ay caalamka ku hogaamin karaan bani aadamka yarar buu Ilaahay wuxuu dhahay badda iyo bariga iyo xoolaha iyo geedaha iyo wax walba waan idin fudanay idinka hogaamiya aqligii ay ku hogaamin lahaayeen iyo taktiigii ay ku hogaamin lahaayeen Ilaahay waa siiyay laakiin haddaad inta waxa soo dhaseexiso dhahdo ma hadlayaan wixii oo dhan deedna aad qaraarka noocaas oo kala iska soo qaadato
waxay ku tusinaysaa inaadan sidii saxdayd u fakarayn marka waxaan rabnaa siyaasiyiinta Soomaalida inay si sax u fakaraan dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii loogu goodin jiray amnigan dhimaya iyo intaan ciidan aruurinaya iyo intaan xiisa uma qabaan waa halmaameen dadka Soomaaliyeed waxaas gaar ahaan dadka reer Muqdisho waxaas way u soo joogeen muddo dheer ilaahay baa ka bixiyay ama shabaab ha ka timaado musiibada iyo qabqac iyo qaraxdoodii iyo dhiig daadanayay ama nin siyaasi oo maalin inta uu iska xanaaqay soo rabay iska yeelay ha ka timaadee dadka reer Muqdisho waxa way ka gudbeen waxay u jeesteen nolol waxay u jeesteen dhismo waxay u jeesteen inay hawo iyo dabayl macaan oo nabadeed oo raaxo leh inay ku raaxaystaan qofku markii uu salmigi u fadhiisto oo uu amni helo ayuu ka fekeraa nolosha inteeda kale laakiin qof aan amni haysan nolol uu ka fekera ma lahay amniga maanta ay magaaladani ku raaxaysanayso ee dadka Soomaaliyeed ku raaxaysanayaan ee habeenkii ay wadadu jaam tahay ee aan wax mashaakil dhicin alxamdulillah bilaash kuma aha wiil Soomaaliyeed ayaa taagan waxa waaye system camera dhagsan wiil Soomaaliyeed meel u fadhiyay gabar Soomaaliyeed isha saa ugu haya waxa waaye boqolaal baa ku dhimatay boqolaal wiil baa ku dhimatay iyo gabdho bale ayaa ku dhimatay malaayiin dollar aan ku bixinay oo dadka Soomaaliyeed laga qaaday ayaa lagu baxshay iska adduunka ay nagu taageeray iskama imaan wax iska soo yimid maaha oo shabaab intay yimaadeen maysan dhihin layntii baan ka daragnay dadka iyo dhiigoodii oo waa iska daynay maysan dhihin maalin iyo habeen waa la hor taagan yahay khaliyada la qabtaa koox meel ku jirta la soo qabtaa markay soo fakarayaan la ogaadaa xaggana waa loo fadhiyaa xaggana waa loo fadhiyaa ayagana waa loogu dhex jiraa shaqadaas oo dhan ayaa habeen iyo maalin socota nin intuu iska yimaado marka inuu yiraahdo waxaas cost kuma fadhiyaane waa in la burburiyaa waxa burburinayna waxa waaye villa Soomaaliya kursigu yaalaa villa Soomaaliya imow aan ka wada hadalno waxaad tabanaysa sheeg waxaad haysa keen meesha loo soconaya keeno meesha loo dhaqaaqayo meeshaas aan ka wada heshiino sidaana dawladdan haddaad ictiraafsan tahay oo dawlad ku tahay ogolow baarlamaankaagu wuxuu mariyay ogolow saad kuwii horeba u ogolay taan sheegay kitaabka aayadna ha diidin aayadna ha yeelin isku qaado kulligiis isku qaado dalkan inaan ku celinno meeshii uu ka yimid ee foosha xumay waa khasaare adduun iyo mid aakhira labadaba wixii aan ka soo shaqaynaynay 4 sano oo dhan ee habeen iyo maalin aanu taagnayna iskamaana taagnayn wax aan ballan qaadnaan fulinayn madaxweynaha markii la dooranaysay ayaguba u sheegeen oo weydeen kulligood nin waliba inta istaago wuxuu dhahay waxaan qaban doonaa kan xasan sheekhna waa yiri ballanqaadkiisii aniga markii la magacaabay ana ka duulaya ayaan program ka soo sameeyay waa ogtihiin program tiirar leh oo uu ku jirto constitution la dhamaynayo oo ay ku jirto doorasho qof iyo cod dalka in la gaarsiinayo oo ay ku jirto in dalka nabad laga dhigayo oo magaalada ugu horeyso kitaab quraan aan loo mariyo gacanta u saaran intaas baarlamaanka gacanta u taagay oo sidaas nagu aqbalay haddaan samayn weyno ilaahay hortiis dambi baan galaynaa shacabkeena dambi baan ka galaynaa baarlamaankiina waa nagu la xisaabtamayaan oo ana daba taagayeen oo shacabka matalaya annaga waxaan iska rabna ma aha waxaan commitment ku galnay oo ku dhaarannay oo aan dadka Soomaaliyeed ay naga sugayaan waay marka waxay ku leeyihiin constitution-ka waxaad u dhamaynaysaan xukun baad ku rabtaan doorashada qof iyo codka xukun kale aad ku rabtaan xukun kale ninkii rabo uu rabi karaa laakiin maya kan waa mandate-kii waa wixii nalaga rabay waa wixii waajibka nagu ahaa waa wixii kitaabka quraanka aan dadka waa ballankii
iyo mucaahadadii iyo baycadii aan shacabkeena kula galnay inaan fulinana waa waajib ilaa nafta inta ugu dambaysan ugu sii jirto inaan fulino waay marka maceeb baan ku leenahay taas waajibkayga inaan fuliyo maceeb baan ku leenahay ceeb kuma lihi hadday wax iga khaldan yihiin kaale ila toos ii sheeg wax iga khaldan doorashada qofka codka ka wada hadli mayno maxaa jira waa mandate adiguna horaad u sheegtay dastuurka in la dhameeyo kama wada hadlayno waa mandate adiguna waad samayn lahayd saad sheegtay waagii hore haddaad dadka khiyaanayn oo been sheegay waa sidaad waagii hore go'aanka saasaad dadka ugu sheegtay marka haddii habka doorashada ay wax ka qaldan yihiin oo wax iga dhiman aad igu daraysid kaale igu dar hoo intaa qaadatid waxaad oo dhan ku soo qor waxaad isleedahay waa ka dhiman yihiin diyaarana haddii dastuurka intaas oo dhan baa la sheegay dastuurkaas ma jiro ilaa iyo hadda qaar ayaga ka midana waa iswaraysanay nin ka mida mucaaradka wuxuu sheegay inta shaashad saarannay dastuurkan ayaa waxaan ka weynay hal qodob oo aan wax ka sheegnaan ka weynay the best constitution Soomaaliya ay yeelata waay haddana ma ogolin oo dee waxbaa naga dhex galay xaramka dhexdiisu saas igu sheegay anagoo joogo markaan weydiino constitutionkan maxaa ku jira ku jaban oo ceeb ah bal qodob ii sheeg constitutionkan dhammaan qaybaha bulshada waxoodii baa ugu jira dadkii federaalka iyo maxaan ku dhahaa u carari jiray oo jeclaa parliamentarianka iyo dadkii jeclaa waa ugu jiraa dadkii culimadu ay ugu horreeyeen ee dadka Soomaaliyeed oo muslimiin ay caqiidadii diintii erayadii wax laga qabay qodobadii waliba gaaraan xaqa xuquuqul insaanka iyo la xiriiray oo si looga qabay culimada say u soo dhigeen lagu qoray waa ku jira say culimada u soo siyaaqeeyeen lagu dhigay ayaa ku jira waxaan marxaati gelinay culimadii sidan ma tahay sidaan idinka aad soo dhigteen sidan ma tahay culimadu markaad fiiriseen oo aad saxdeen ha waa sidii qolada xuquuqul insaanka bulshada rayidka ah qof cid walba meeshii ay doonaysay wixii ay rabtay dadkii kala duwanaa iyo qaybihii bulshada ay kala duwanaa qayb waliba wixii ay rabtay iyo wixii u dhignayda loogu dhigay haddaan waxaan la ahay marka ilaa hadda idinkana soo fiiriye nin siyaasi ah oo hadlaaya oo leh qodobkaas iyo qodobkaasi sax ma aha ma dhihi karaan maxay rabaan marka had dhaqaaqin anigu marka siyaasad laga soo shidaal qaato meel kale oo aan ognahay iyo Star Wars adduunka ka socda iyo Soomaaliya aysan dhaqaaqin Soomaaliya hal kala qaybiyo iyo mashaariic kale iyo Abraham Accord ma dhahayo Abraham ma dhahayo nabiga Ilaahay ha laga daayo maxaan ku dhahaa dibke nabi Ilaahay Ibrahim Accord uu leeyahay meesha kuma jiree malaha Abraham Accord baa ku jiree waxa waaye mashaariic waxa salka ku haya oo waxaas ka soo shidaal qaadanaya dalkan Soomaaliyeed wanaag uma tarayaan dadkan Soomaaliyeedna ma anfacayaan laakiin wixii dhab ah ee la isugu imaanayo dawladda waa gacmaheeda furan laabteeda furan dhigaheeda furan diyaaraan loo yahay waana soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa inaan dadka Soomaaliyeed niyadda laga dirin aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale hambalyo wasaaradda iyo maxaan ku dhahaa shaqaalaheedaba waan idin mahad celinaynaa sida wanaagsan ee uga shaqayseen waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.